خاصة إن رجع إن واحد أركيسا إن الظلم آد وفربضان يكون عن أيجو إلهي سبحانه وتعالى عن كجعب سنين حاسس كود هدي أد هويدا يوابها أد عاسي أد وهيد المها عاسي نقنايا ولذلك علماء وحيرهان وحيابها الدنيا كسر دق عقابته والدنيا كسر دقته وحكى الرأي أكمل والدين تعاسني ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نصينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم الحمد لله إله مهديس وهذا أمرك له وذا أنقصه وذا الله بنا أنه إسحس سنين ذكر إلهي سبحانه وتعالى أن وحان نصعد سلسلة دي هيت الشخصية المسلم أن إلهي سبحانه وتعالى هدو قدر عاو أيان سو قتمنا سيئان هدنا سلسلة كلاون بلاونو أو وحان كسو هذا لي أن مسلمك وحلا قدوني وقفك مسلمك أيان كهدليني أن وحان سو شيقني على قادة أسيء ربي يسكد حيسا إيوه دادكو لنور يهي جوانبتنا وحان كسو هذا لي على قادة وحان كسو هذا لي وللي يقفك مسلمك نفتيسا على قادة مسلمك وللي يهي jiiraankiisaan ka soo hadalnay calaaqada qofka muslimka la doonaya inuu la lahaado waalidiinta caruurtiisa inuu la lahaado caruurta sidoo kale waalidkooda calaaqada ninka xaaskiisa uu la leeyahay xaaska calaaqada ee ninkeeda ay sameynayso inay waxaasoo dhan ay yihiin muslim mutakaamil ah qofkaas sidii shakhsiyadiisa muslimnimada ay kaamil u noqoto waxaa la doonaya intaas inuu hagaajiyo oo ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa ahaa لبع عبارة يكون حديث كاس النبي كوسو كوب أهيد اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن مركا اتق الله مركا وران كسو هذا وحق عبد مع ربه وعلاقة العبد مع ربه هنك هذا لي يقفك إنه هجاجي علاقة أصيغ ربي سكد حيسا وحن كسو هذا وخالق الناس أنا مركا كلا قادنا الناس يعني كلا قادني وأن كلا قادني درس كان كهذا لي وحن كهذا نحن كمسلم كان كهذا لي وحن كهذا لبدا والد حاس كان كهذا لي waxaan ka hadlaynaa caawa aan kusoo qatimina xalaqada calaaqada uu qofka muslimka lahaan kara ama mucaamalatu muslim ligayr muslim dadka aan muslimiinta ahayn waagii hore aan Soomaaliya joognay anaga waxaan ahayn dad muslim ah wax muslim ahayn naguma dhex jirin wadankan nicmada aan ku jirnay kamid oo hadda laga shalaysan yahay oo dadka qaarkood ay la yaaban yihiin maanta qof muslim ah oo Soomaali ah misdhehaynin gaal ayaa mucaamalo niga dhex maraysa laakiin qadar Allah ma shaa facal ilaahi subhanahu wa ta'ala iraadadiisa ayaa markasta ayaa soconaysa haddana waxaan doonaynaa ama Afrikaan imaano walidaalika mararka qaarkood waxa arkaysaa dadka waxba iskaaga dhex qarsoon markii laga hadlayo dadka gaalada nool waxay soo eegayaan dadka Soomaalida jooga kaliya inay la nool yihiin kaliya dadka heer galbeedka ku nool oo Yurubtaan ku nool ayay waxay ku leeyihiin dadkaas gaale la nool yihiin ha ka soo guuraan gaalana lama degi kara gaal ma loo haajiri kara laakiin markuu uu Kenya u safraayo ama South Africa aadayo inuu gaal u safraayo ma oga ama dadka nool inay gaal yihiin ma oga oo marka walidaalika dadka waxa hatta mustalahaadka ay iska dhaxaya waxa laga yaabaa nin Kenya joogo inuu yiraahdo baladka gaalada looma haajiri karo oo isna balad gaal uu joogo laftigiisa maxay yeelay gaalada ma aha jinsi ma aha waa diin weey diintana marka meel kasta ay joogto walidaalika wasfigaas waxa leeyahay zaa'il weey waa asbab badala بلد شلا قال هاي ما أنت مسلم نقنكره بلد مسلم هاي قال أيو نقنكره سيد شخصي أو ولذلك أساسه الشيخ الإسلام ابن تيمية يغير كيس كل شيء وصفه أو دار الكفر دار الإسلام دار الحرب وحصل نمبر ومصطلحات فقهاء يسمين معها أصول ونصوص لها معها مركا قابل للتغيير وي ولذلك المركا وحن كهل لنا قفك مسلم مركا له هنا مركا معاملة أولى اللي هي قفك غير المسلم محيته إلى أي حدوده ayuu kula dhaqmi karaa ma gaal kasto aad aragtid macadawa mas gaalada maraatib kale leeyihiin walidaalika silsiladeenan oo shakhsiyatul muslim taas ay caawdo ku soo qatimayna si aan insha Allah Ilaahay doona waafajiyo silsila kale oo iyadana muhiim ah asdahayna oo umada aan u baahanahay nafteena inaan ayadana aan bilaawno markaan ka hadlayno marka gaal markaan ka hadlayno waa qofka aan dadka diinteena haysanin weey laakiin waxa naga dhaxaysa insaaninimadii naga dhaxayso maxaa yeelay حقوق إنسانك لو ما فيري مركل لجاه الله لو ما فيري الدين لو ما فيري ما حد نقدر أضمن إلى النهاية ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس وخالق المؤمنين لو مدهن بس حلول ليه وخالق الناس ضدك الناس ندال أركتد وحسوا قليا إن قال كود مسلم كودا
ayaa soo galay naas dilila dadka mu'miniinta ilaahay waa ka soocay markuu ka hadlayo walidaalika suuradaha madaniga ah yaa ayuhaladiina aamanuu yaa ayuhaladiina aamanuu markii laga hadlayo ama xataa markii wax la isku fardi yeelayo kutiba calaykum asiyaam kutiba calaykum alqitaal waxaasoo dhan waxay tahay waxaa laga hadlayaa dadka mu'miniinta la qitaal laakiin markii la dhahayo yaa ayuha nnaas dadka dhan ayaa soo galayo kaafirkood iyo muslimkood marka wa khaaliqi nnaasa biquluqin xasan xadiiskaas marka waxaa laga baxsanaya qofka muslimka ah maxay tahay calaaqada ama mucaamalada la doonayo inuu kula macaamiltamo qofka muslimka aan ahayn maaha kan reer galbeedka joogo maaha waa kan Kenya kula joogo waa kan Uganda kula joogo kan kula joogo Burundi meel kasta oo muslim aan dawlad muslim aan ahayn ayaa laga hadlaya kow xaq ugu horeeyo oo uu kugu leeyahay waxay tahay xaq weey mararka qaarkood waxa loo xisaabaa xaq inuu yahay mararka qaarkood waxa leeyahay ma aha xaqay qofka iyo waajib ku tahay maxay yeelay xuquuqda iyo waajibaadka marba isdhaxgalaan marra isdhaxgalayaan saas daraadeed waxa la leeyahay ama xaqda ama waajibka qofka muslimka oo laga doonayo inuu qof gaalka uu ku leeyahay maxay tahay ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala diintan inuu u yeero qaasatan dadkeenan Yurub oo maanta guryaha la siiyay oo maanta ilmahooda iskoolaadka loo fasaxay adigoo madow oo muslim ah oo xuquuq lagu siiyay oo iskoolaadka gaalka u dhiganaysa xuquuqda wiilka gaalka lahaay leedahay waxa soo dhan markii lagu siiyay islaamku wuxuu ku tusayaa marka inaad abaal marisid man lam yashkur an-nas la yashkur illaha الناس الله حديث قبل فيه وحلي إنك أن dadka gaalkooda iyo muslimkooda qofka abaal gala waxa la doonaya marka abaalka aw qaban kartid gaalada waxay jecel yihiin nolol jecel yihiin ilaahay quraanka waa noogu sheegay oo yaclamuuna waxay ogsoon yihiin noloshaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ay aad qiimo u fadhid maxaa aakhir ayaga maba aaminsana qaarkood haddii aaminsan qaarna sacrifice waxbay helayaan ay aaminsan yihiin saas daraadeed wixii adduunka ugu jeclaayeen wax ka siiyeen oo aad inaan noolaatid ayagu waxay jecel nolol jecel yihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qaasatan ama yuhuud ahaad oo ku tilmaamay ashad الناس على حياة ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhahayo waxay jecel yihiin على حياة nolol ay jecel yihiin macnaha nolol ay nolol ha ahaato marka noloshii oo ay jeclaan waxay ka siiyeen guriga deganay wax ka dajiyeen adiga maxaa u qabat marka adiga waa ina adin waxa jeceshay maxaa jeceshay diintana jeceshay diintana ku weyn qof ayaa badbaadinaysa qof aad naarka badbaadisid wax ka weyn ma jira qofka inaad amaanta qof u socdo dab ku socdo dab ku dhacayo aad gacanta qabatid aad soo badbaadisid ama qof gaarish dilayo hadaad aragtid ama gaal ha aad muslim ha ma dhehis gaari kaas ka dilo gacanta ka soo qabanaysa waxa ka badbaadinaysa noloshiisa badbaadinaysa saasoo kale weeye diintan waxay tahay badbaado weey tan lagu badbaadayo weey oo nabiga kaleey salaam noo sheegay qofkana oo adigna aad ajir ku helaysid adaalu ala alkhayr ka faa'ilihi qof muslim hadaa soo islaamisid ama aad khayr u fashid khayrkaas aad dadku u tilmaamtid adigu ajirkiisa kala leedahay fa wallahi حديثك على قرنيس النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهديه الله بك رجلا واحد أي خير لك محيطها من حمر نعم روايات كلا الدنيا وما فيها إذن وحليه النبي عليه الصلاة والسلام والقف إنه عنده إليه كسو هنونيو أي خير بدن وحا أن جيل كود جدودا طيب تاس وحيت حقوق الله هاي قفك مسلم كحقه كله وحيت وردين تان وناقة بدن إن عدتك أو جارسين إن أسكفر يسنين أسلوبتك وجارسين يسنين ويبدن تهي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلهي سبحانه النبي عليه القرآن كحلو شيء وحد كتر أنا ومحمد وجد كان وضد تدخل ويريا إذن وحد وجهته قف كستو ودن قال كل نول سفير وي رسالة حبارسية رسالة ذا سيرين على كضيع من marka laba dhinac way risaalada ilaalinaysa kaaga doonaysa waxay kaaga doonaysaa xuquuqdu ninkan uu xuquuq leeyahay tan muaamaladiisa aad kula macaamilayso ahayd inaad aad diinta u sheegtid si ludfi u sheegtid hatta baad fuqahaa waxay ku leeyihiin talqiin al-kuffar bi shahadatayn fuqahaa way ka soo aroortay nin gaal u dhimanaya dadka isbitaalada joogo oo agtaada ku dhimanaya inaad ka gaarsiiso aad tiraahid ilaa markaas oo kale waxa laga yaabaa inuu wax ka ogolaado ilaahay waxa laga yaabaa hanuunkiisa gacantiisa ku jira inaad ku badbaadisid inuu tawxiidku ku dhinto aad tiraahid xataa culimada way ka soo aroortay in loo laqino dadka xataa gaalada tawxiidka markay geerida muxtadarka yihiin in loo laqino janibka kale waa ka ilaalinaysa rasuul maxay tahay alla tadlumuhu wargaal hala dulmiyaa yiri maalkiisa inaad xadid maaha ان عرضي شرفتنا wax ka sheegtid maaha waxa soo dhan dulmi weeye oo waxa arkaysa marka waxa kamida khiyaano inaad shaqo ku dhiib shaqada aqaayanta maaha qishka wax kasto ninka muslimka xaraanka ah xaq uu kugu leeyahay waa ninka gaalka ah sidoo kale inaad dawcanin walidaalika nabiga kaleey salaatu wasalaam maad ibn jabal markuu yaman u diray waa garan kartaan xadiiskii ah yaman ahlu kitaaba degan dad gaala degan markaas wuxuu ku yiri ittaqi da'wat al-madlum
warninka oo la dulmiyey ducadiisa iska habaarkiisa iska ilaali waa nin gaal habaarkiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala maxaa ilaahay caadil weey sifadaas cadliga oo ilaahay ku sifoobay waxay keenaysaa in qof kasta oo markaa dadka ay u sinaadaan kiisa gaalka ay kan kale in uu kala xaqaado cadaalnimada taas iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala la dulma al-yawm qiyaamana sidoo kale weey dulmi ma jiray adduunyada sidoo kale waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala caadil weey idin cadligaas waxa ka laazimayo in qof oo gaal hada dulmisid haduu markaa ku habaaro oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ولذلك قال هذا مراتب كلين قار وحاجر إله رميسن لكن الرسول كديدنا عليه الصلاة والسلام إذن وحلقة يابا إنه رب كاسو قاربا حق صدحات مثل المعاملات كالمحيطة المعاملة سيدة دتك كالحق يقولين المعاملة تمو بيع والشراء إن أدنين قالوا حكي إبسي كرتيد أدنك إيبي كرتيد إلا حلقة أركود أي علماء كإسنا وذين وحي راهين مبنانا دول كمسلمين تا إن قال لغا قدو nin gaal ina dhul muslim balad muslim adoo joogo nin gaal ina dhulkaaga aad tira beec u yahay safaarad hebel aan siinaya imadadan ka iibinay inaad tiraahid ma banaanayeen maxaa dhacay baabu sad daraaci way tahay maxaa dhacay aayadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaalada ilaahay wilaayay kaga ma yeelin nin muslim ah saas daraadeed inuu nin gaal oo dhul muslim oo gato u yiraahdo dhulkan iga gad aniga ana gadanayo sharci ahaan waxa ilaahay la yajuus sidii jumhuurta intooda badan ay qabaan culimada oo ah ay gadnaan laakiin adigina wax ka iibsatid nabiga ka iibsaday calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam yahuud wax ka iibsaday waxa ka gateen beecoodu xalaal u ahaa waa kala iibsanayeen waxna waa laga iibiyey balse waa loo shaqeynayay way banaanta gaalna u shaqeysay dad wax maleen gaalka u shaqeysay in xaaraanta maya cali ibn abi talib yahuudi u shaqeynayeen dad oo muslimiin aan ahayn way banaanta in la shaqeysa hada kayf natacaamul qofka muslimka laakiin qofka inuu u qaado oo aayada ahayd waqatil mushrikiina kaafo iska soo qaato oo iidan sabab nuzuul leh oo asbaab badan loo fiirinayo oo yiraahdo gaal meeshu ku yimaad hala dhaco gaal meeshu ku yimaad hala lugooyo gaal meeshu hala dagaalo ma aha nusuusta saas ma aha war nusuusta ay iska horkeenin nusuusta waxay leedahay mid kasta weelay ku jirtaa hala jamciyo kadib ka tafsiirka caamka ah ama maqsadkeeda hala qaado laakiin marka aayad kasta oo aad gaar u fasirta oo aayad kale ka tagtaa waxay keenaysaa diinta ay iska horkeenaysaa diintan iska hormaanayso ra'yiga waxa iska hormaanayo sidii ay culimada noo sheegeen qadka telefoonada halow هلو نعم عدك ما مغلق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عندنا هذا أساكو أكل هذا يا أخي الشيخ السوري آد إن شاء الله قوم عندنا برنامج خيرك ونعمة الله إن شاء الله جزاكم الله خير إن شاء الله محمد بلنا ودك نور بنك صالح نعم marka waxaan ku su'aal yaro waxaan ku weydiinay aad imaka meel baa ka shaqeeya marka meeshan ka shaqeeyo waxa maamulka iska haysta nin gaala marka xaflad waxa soo gaadhay sanadii uu dhashay marka dadku waxay u ururinayaan kulli lacag hadiyad si loogu siiyo marka xogaa aniga namaas shaqan meesha waan faham weynay inaan ka qaadanay inaan iska dayno dhammaan faham weynay marka waxaan yidhi ma galeelaan culimada weydiiyo ma sha Allah marka insha Allah bal igeer jawaab bal yar fas insha Allah inaad ka qayb gal kar bis wax kale ma waa dhalashiisi konta sano gaadhay marka dhalashiisi deena sabta lacag yar oo lacagta lagu qof kastaba in yar buu bixinay wax lagu siiyo hadiyad iyo waxaas marka aan camalay sabta lacagta aan bixinay xaraan iyo deeyan bayna ka qayb gal kar dhibaato lahayn bal insha Allah inoo faafay insha Allah khair Allah ama mas'alada oo ah in hadiye asiisid waa wanaagsan tahay wax wanaagsan way maadaama isla shaqeysaan hadiyada in la siiyo way banaan tahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada gaalaha hadiye way siiyeen in laga qaatana way banaan tahay si uu qaateen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badan ay mulugtii iyo boqoradii ay hadiye ay siiyeen ina ka qayb waa wanaagsan tahay mas'alada kale oo ah haday ahayn ciid aan ahayn ciid diini aan ahayn oo xaflad kale uu qabo ama aroos uu qabo haddaan meesha munkar lagu haynin oo ah qamro iyo waxyaabaha dabcan sida muuqata nin celebration sameeyay qamra lagu cabaya ma halka marka inaad ka cudur daarta ayaa igala wanaagsan afdal ila ah insha Allah xafladaha ma tago laakiin bas waxaan ku taageernaa inaan hadiyad sina laakiin ma batagaba hadiyad waa banaan tahay barakallahu fiik okay domas واسينك هدية جزاك الله خير نعم نعم قد كلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا الشيخ أسلي وانك سلامي أنا سلامك اللي بحربنا هنا كويدين دي إلهي رالك النقضة waxaan naga dhintay macalin ilmahan iskuulka u dhigi jiray oo muslim oo Soomaaliya Allahu naxariisto jannada Ilaahay ka warabi biin raxmaan insha Allah ana gabdhihii u ahaa macalinka ayaa waxay rabaan inay lacag bay ururiyeen ee rabaan inay masaajid ugu daraan oo ay uga dhigaan sadaqa jaariya naam arrintii waana laga daba yimid waxaa la yiri mar hadduusan idin dhalin aqrabeena idin ahay waxaana idin ahay nacam ma u bixin kartaan sadaqa jaariya annaga ilmaheenu macalin u ahaa ilaahay dartiis inaan ku xusuusano aakhirana aan ugu horumarino una ducayno carruurta iyadu aada u dhaqaaleyn jira nin naxariis badan aan aada u jecelnahay buu ahaa waa ka bixi kartaan waqti wax nus reebay ma laha balse nusuusta qaarkood waxay kusoo aroortay salafka inay saas oo kale qof dad wax iskaga bixiyaan qofka muslimka qofka ilaahay dartiisa u jeceshihiin qofka aad wanaag u qabanaysaan wax reebay ma laha waa u bixin kartaan sadaqa insha Allah sadaqa jaari masaajidka waan ugu dari karaa waa ugu dari kartaan idinkana ilaahay subxaanahu wa ta'ala haniga abaal maray جزاكم الله خير نعم dhinaca kale نعم dhinaca kale الو waxyarka socodaan rabnaa weydino tv ga iska gaabi oo ku maqlaya tv aan si gaana سؤال التليفون يمده نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سليه الحمد لله شيخ أنا بهنينا أساك الله هذا يا أخي هيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وصولي نعم وحان هينا الدنيا دان يعني علماء الحمد لله إلهي بان أقوم هذنا الله نو زياديو نعم آمين يا رب كسمده إيه فهمده إيه وحكست الله نو زياديو اللهم آمين يا رب أيجنا الله نو بديو إصلاحنا الله نو سوبيو اللهم آمين waxaan ishaynaa nin aniga hadda meeshaan ila fadhiya naam oo muxuu ahay maanta aan xoogaa iskhilaafnay waa garta wuxuu yidhi aniga waa soomaa naam waana salaadaa alxamdulilah xidkana waa tegey naam ramadaanna waa soomaa waa garta laakiin adooga iyo habartii danka ma lihi subxaan allah aye meeshaasaa marka waxa uu leeyahay wadaad kaloona la fadhiyay asagaa xoogaa aan dhex galo waxaas yidhi salaadaada iyo xidkaaga iyo zakadaada iyo sadaqadaada iyo kulli aqbal ma aha waxaan idhi adigana sidaan ha dhihin adna sidaan ha dhihin sheekhaan u jeedinaynaa hadduu alla yidhaha jawaabtii leen rabnaa wax kale ma rabno ilahay khayra ku siiy maasha allah akhi qabuulka ilaahay subxana wa tacaala haayo oo qof wax la dhahayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa dhihi jiray laa yaqbalu salaata axadukum asaga maxaa nin loo soo waxyo ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qabuulka ilaah haayo oo teennaba in la aqbalo ilaah ogto ilaah naga aqbal dhammaanteen laakiin masalada ah ninkaas waxaad moodaa cibaadada fardiga ah hadduu gutay waajibka waa ka dhacay oo lama dhahayo soo qalay lama dhahayo hadduu sooday salaadii uu salaaday uu soomay oo xajku u tagay waxaas dhan waa furuushii ilaahay ku waajibiyay asaga sidii salaada loogu waajibiyey waxaa loogu waajibiyey waalidkiisna oo adeecadana wabilwaalidayn ixsaana marka waxaad moodaa waajibaadka ilaahay oo kala dooranaya mar midnuu qaadanaya midnuu uu ka tegaya taas ayaa waxay keenaysaa marka qofka inuu caasi waalidayn u noqdo dhibkeeda leedahay oo waxaan leeyahay waxaa laga yaabaa cibaadadaada inaad wadi weydaba oo ah ilaahay subxaana wa tacaala biri kugu ciqaabo inaad ilaahay hadda kuu sakhirayo soonka aad sheegaysa ilaah kuu sakhiray salaada ilaah kuu sakhiray haddii aad waalideynta adeecayso waxaa laga yaabaa cibaadadaada kale xataa inay maxay dad cuquubada oo caaqi waalideynka adduunkay kusoo degdegtaa marka waxaa laga yaabaa biri ilaahay subxana wa taala inuu kugu ciqaabo inaad cibaadaadka ilahay u dhawaan saftooda aa waayid marka maxaa diidaya inaad kulmaysaa haddii aad salawaadka fardigeeda aad la timid oo cibaadada ilaahay subxana wa tacaala tanna waa cibaado maxaa yeelay wabilwaalidayn ixsaana ma aha wax iska ah cibaado wey oo ilaahay lagu caabudayo wey ilaahay subxaana wa tacaala oo aad ugu dhawaanaysid wey maxaa ayaga ayaa adduunkaaga imaatinkaga ka mas-uulaha marka waxaan leeyahay waxba iyo shaydaanka usaasan midda kale oo dhammaantiin aan iga digaya waxay tahay diinta muranka laga ilaaliyo jadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu digay dadka oo aan diinta aqaanin oo maqaayadaha fariistaan ama iyaga isqabsadaan oo nin kasta madax adeeg kalema u yidhaaho kelimadaas waxaa laga yaabaa biri inuu diintiisa wax dhunto ina rajula layatakalama bikalimatin laa yulqi laha albaalow nabiga calayhi salatu wasalaam tahwi bihi ila naari 70 khariifa waxaa laga yaabaa diintan aad dadka aad wada garanaynin oo waajib ahayd inay bartaan
haddii jadal iyo dood ay geliyaan ay dhahaan may kaas waa diin maaha kaas way ama culimmada naftooda kan culimmada u caay kan culimmada kale uu wax ka sheego biri meeshaas waxaa imaanaysa dhibaata ka dhacayso nabiga calayhi salatu wasallam wuxuu noo sheegay waana way dhumayaan dadka jadalka qoom jadal haddii yimaado wuxuu yiri dalaala ayaa ku xigto inay dhumaan marka waxaan leeyahay fasaluu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun waxa aad garan weysaan haddii labada qof ay yihiin qof hadda labada murmaa yihiin laba wax yaqaan nin kasta daliilkiisa ha sheegto hadduu aqaanina iyo ku murmuriyo diinta ka dhigin muran iyo fadhi ku dirirka iyo laga dhigin diinta adiga ah maxaa yeelay dadka dhan banaanka dad jooga dhan way wada dibaaban ilaahay subxaanahu xaqa noo soo dhamaanteema naam dhinaca kale halow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ومقعيقة آمن على ده سؤال بان ربينا كويتيو. تفضل أختي. شيخ وان شقيا وحن كشقيا عافيماتك. نعم. نينك aan mas'uulka naga hor lacagta nasiyo salarigeena nasiyana waxa waaye dadkan laga roonayaasha ah waa gartay marka aniga xaajigayga ku murnay marka su'aashaas aan rabinaa ku weydiiyo lacagtaas xalaal ma ii tahay maadaama ay tahay lacag caafimaadka ka timaada نعم lacag caafimaadka ka timaado oo lacagta kasbigeeda ayaa xalaal ka dhigay xaraana ka dhigay waxaad ku soo kasbatay ama habka ay kugu soo gashay haddii xalaal tahay sidii kugu soo gashay ama laga roodana ninka ama dumar ha ahaado ama labeeb ha ahaado wuxuu raba ahaado lacagtaas xalaal waa shakhsiga lacagta ma bedelayo absolutely ma hadsan sheekh نعم jazakallahu baalif khair جزاكم الله خير dhinaca kale halow hello نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله بترويات يا شيخ أساك الله الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمقع يقول اسمع وياه نعم تفضل أخي وريو واحد كورة يا شيخ إنا بميل كشقيني ميل بو كشقيني بعتليش كلا يرادو حري نعم marka adigu wuxuu ka soo dhacay meeshii ka soo dhacay gurigii dee uu dalbaday inuu ka shaqeeyo gurigii ku soo dhacay muxuu ku soo dhacay ninkii baa wuxuu ka soo dhacay ma garanaysaa gurigii ku shaqeynayay waa gartay marka adigu dhaawac baa gaaray gacanta ka gaaray نعم marka miyuu ku yeelanayaa qofkii uu shaqeynayay wax dee magdhow ama dee lacaga xaqa nidaamka dadka dawladda ma ula jeedaa mase waa dad muslin oo laba qofood oo isla samaynaysa laba qof oo muslimiin oo markaa qofna uu shaqeynayay qofna loo shaqeynayay نعم masaladaas waxay ku xiran tahay damaantaas waxay ku xiran tahay meeshuu kasoo dhacay hadday ahayd meel dad kasoo dhacayaan oo ninkan loo dhisay uu saara meesha ama sulamkii uu meesha ku koray hadduu ninka guriga lahaa uu leeyahay asbaabo badana loo eega arrintaas oo asaga inuu daraf ka naqan karo qofka laakiin haddii ay waa istisnaaca cali ibn abi talib radi allahu canhu ayaa wuxuu marka dambe waayadii dambe waxaa la sharciyay waxa lahaa al-istisnaac oo ninka khayaadka dharka tolayo haddii uu marada uu si xun u gooyo معودية تعويض ما لقى دونيا مركا هشيس كاسي كحرنتاي نين كان مشو ديساي هادو قلد وديسي لها ان سو اسق ضمان قادن لهين هادو ميل قلد ديسو اما ميل ان شباكه ان كسارو دومي اما سميلا دهي لها مر لباد ادا قرشka taasay ku xirantaa marka haduu heshiiskaas jira labadoodu way damaanada kala galayaan laakiin hadii wax iska maftuux yahay waxaan wanaagsan inuu aan wax la isku qabsanin laakiin hadii heshiisi oo saas oo kale ay jiraan waxaan leeyahay ha loo caawido ninkaas jabay asbaabtu ku jabay in la eego ku wanaagsan tahay isla markaas masalada waa mas'ala qada weeye fatwo ma aha masaladan oo kale waxay u baahan tahay labada dhinac la dhageysto iyo xaysiyaadkan in la ogaado si loo sheego insha Allah الله يجزيك الخير شيخ السلام عليكم بارك الله فيكم ان شاء الله dhinaca kale الو hello نعم wadaadka ma la hadli karaa asaa kula hadlay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo weysada qofku markuu weyseysanayo marka aan cagaha maydho adin aan maydho haddaan adinkaas inta aanan kabta gelin aan qalasiyo anigoon weli kii kale maydhin oo markaa dabeetna aan kabta intaan geliyo ka kale haddana aan maydho ma wax
dembiyaba oo ma la ogol yahay saas ان اركانته فرائض الوضوء بعض الفقهاء waxay ku daraan almuwala in la xiriiriyo wadalika shardigaas hadii laga waayo saweysadaada ma jirto ay dhahan qaarna kuma daraan laakiin waxa ahsan ah ku wanaagsan ina xiriirisid markasta inqitaaca waxa uu fasliga ah oo kala jarayo dib ayuu leeyahay marka inaad xiriirisida ku wanaagsan soo aad qalajinaysa mid kale u gelinayso waxa ka wanaagsan labadina asla gelisaa naam ما حسنت يا شيخ السلام عليكم جزاكم الله خير لنا كلا الو نعم تيفيك اسكاب تيفيك اسكاب اخي ايوه ولا نعم الو ها السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalkii waxaan ku weydiinayaa waxaan joogaa wadamadan Scandinavia-ka wadan kamid ah waxaan ka shaqeeyaa iskuul baan ka shaqeeyaa naam marka waxaan ku weydiin mataqaanaa sida caadada yani qadada ilmaha waxay ku cunaan iskuulka ay ku cunaan maxay ku cunaan marka iskuulka macnaha xilliga qadada ha macnaha iskuulka cuntada qadada ku cunaan naam marka waxaa jiro yani cunto oo dadka muslimiinta yani dabcan is qaadan karnaa inta badan iskuulka la keenaa mal kala saaran cuntada muslimiinta iyo khayrka muslimiinta la kala ma saaro way kala saaran yihiin laakiin waa macnaha ma taqaanaa ay sheeg cuntada waa la wada keenaa maaragtay sheeg way kala saaran yihiin laakiin halmiisa wada saaran yihiin oo maaragtay sheeg raashinkii maaragtay sheeg laakiin mid walba wuxuu yahay uu ku qoran yahay maaragtay sheeg inuu kan yahay macnaha doofaar inuu kan yahay ma taqaanaa hilib caadi ah inuu yani uu ku qoran yahay ma fahamtay naam marka waxaa jiro ma taqaanaa ilmo ku cusub wadanka oo muslimiina oo maaragtay sheeg oonan akhri karin luqadii oo maaragtay sheeg dabcan yani ana luqadii aqoon wadanka cusub oo muslimiina marka waxa dhacda marka qaar inay ku qaldamaan maaragtay sheeg yani maadaama ay wixii akhri karin macnaha hilib duban oo kale ma kala saari karaan kan wuxuu yahay moogta marka waxa dhacda marka qaar inay inta badan ba inay ku qaldamaan yani wax xaraan yani dabcan marka qaar ay cunaan marka dhacdaasna mar walba maalin walba inta badan joogtaan u ah maaragtay sheeg inta badan isku dayaa in maaragtay sheeg aan xogaa ilaaliyo laakiin ma awoodo yani waa iskuul weyn ma garatay waa gartay marka xogaa way yara dhibta arrintaasna aad ii dhibta maaragtay maalin walba ma ka arkay yani maaragtay sheeg gabar yar oo xijaaban ama wiil yar aan aqaanin oo muslim yahay oo haddana wax yani waxyaala noocaas maaragtay qaadanayo بارك الله فيك أخي wax la dhibsada waa taa laakiin waa in talaabo la qaadaa wixii oo qalad ku dhacay iga dimbi kuma laha laakiin adiga maadaama aragto qof mas'uul aad tahay waxa wanaagsan in seminar la sameeyo caruurta luqadda aan garanaynin in cala aqal loo sheego magacaas iskuulka laga cunaa inta iskuulka laga cuno la sheego magacadooda kan ka doorta kan ka qaata in la yiraahdo in la isku yeero maalin sabti ah muslimiinta dhigato aan ka dhex galo waa runta way wanaagsan tahay laakiin aniga waxaan awoodaa yar sababto ma ahan yani ma wada Soomaali ma wada kulligood waxaa laga yaabaa yani wadamo badan oo qaarkood Yurub wadamo muslimiin qaar dad Yurubtan ka imaaday qola Arab ka imaatay qola wadamo kale Afrikaan kale ka imaatay iyo maaragtay sheegeen waxyaalo noocaas marka inaan maanta dhan aniga aan boodo maanta dhan adiga kala ma qaban kartid waan talada aan ku sii akhi ilaahay khayr ku sii waxay tahay in qolooyinkaas waalidiintooda lala kulmaa oo la yiraaha arintaas aan aragnay adigana risaaladaas aad gudbisaa risaalada anagana soo gudbisa khayr Allah ku siiyo ninka maqlay waa Soomaali laakiin muslimiinta kale waxa laga yaabaa luqadeed ma fahmayaan in waalidiinta meeting ajir parents ajiro oo la qabto iskoolaadka uu qabta idinka maadaama iskuulka ka shaqeysa hadda macalinka tahaba inaad tiraahid la kulantaa dadka muslimiinta gaar ah aad u sheegtaa arintaas aad ku baraarujisaa aad Allahumma ballaqta agarsiisa ama ilmaha si lagu bari karo iska saaranta hadii nooc la tuso kaas iska ilaali la yiraahdo iska daayin kara ilmaha marka arintaas waxaan kugu boorin lahaa inaad u sheegta arintaas okay waa ma aad u mahadsantahay hadii aan awoodin koona aan garanayn badanka waalidkood aan badan aan garanayn la xiriir aniga wax dambi ahaan qaasatan isoo gaarayaan inta aad awoodid gaarsi waa fardiga waa ka dhacaya kifaayo way fardiga ceynka hadda kugu ah in kifaayo hadaad gaarsiis waa ka dhacaya insha Allah aad waa mahadsantahay walaalkay jazakumullahu khayr dhinaca kale halo نعم تيفيك اسك قاب اخي هلو السلام عليكم. عليكم السلام تيفيك اسك قاب اختي
shiiqo khayr Allah ku siiyo waxaan rabay inaan ku weydiiyo su'aal waxaan ka soo hadlaa dalka Norway waa gartay marka shiiqo waxaan ku weydiin rabay su'aal ku saabsan dhaxalka hadduu aabbahay oo kaleeto uu yiraahdo aniga haddii aan dhinto ilmaha yararka oo qaan gaarin iska kiisha wixii hantiyoon ka dhinto macnaha ma dhibaato ma leedahay aabbahay xaggiisa ay kasoo gaaraysa hadda idinka cafinin dadka dhaxal kale hadii cafinin eedin aabaheen wuxuu yiraahdaa waa ku qanacsana raali ka nahay hadii dhihin waa ku dimbaabaya asagana waxba ka soo gaaray maalkan waa la qaybinaya waay shay qeyr Allah ku sii waa maasanta inta saarwina ku weydiin barakallahu fiik dhinaca kale halo assalaamu calaykum wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan rabaa sheekha saa kula hadlaya sheekha waxaan rabaa lambarkaaga qaaska ah lambarka masjidka qoro 028 ya 028591591 02859 591 kala hadan mar kale ku celi 7 159 laba mar oo 591 ah iyo 7 ugu dambeys haye insha Allah dhinaca kale halo halo dhinaca TV iska gaabi TV iska gaabi halo assalaamu calaykum calaykum salaam TV iska gaabi waqti walaal hooyo ka soo hadlaysa wadankan Yurubta su'aasha aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay for example nin oo laba xaas leh xaaska yarna u qorneen oo xaaska weyn u qoran haddii uu macnaha oo ilmaha xaaska yar dawladda u diiday inay u rajis gareyso oo xaaska weyn kaliya u qoran tahay ninkaas ma wuxuu ugu talagalay inuu ilmahaas xaaraan ku dhalo ilmaha xaaraan ka dhigaya qoritaanka xaaraan ilmaha ma ka dhigaya in la qoro in la qori xaaraan kama dhigaysa nikaax xalaal uu jiro xalaal ka dhigto ma qof ay ugu yiri hadii ilmaha xaaska labaad aysan ku qorneen oo ninka xaaska labaad uu soo guursado oo Yurub keeno uu qoran waayo naag labaad uu ku talagalay macnaha ilmahaas xaaraan ku dhalaya arrimahaas waa arrimaha dumarka iyo hinaaskooda iyo laakiin wixii sharci ah aan ku sheegay aniga qofka xalaal iyo xaraam waxa ka dhigaya sharciga inuu qariino maaha inuu sheego waa dawladdu u sheego ha ogolaada ama ya ogolaan laakiin waa in la ogaadaa ilmahaas isaga inuu dhalay maxaa yeelay qasab waaba sheegaba oo dawladdu waa ogtay oo ilmihii baasaboorkooda way ku qaateen ilmihii wuu dhalay oo waa ku qoran yihiin oo waa og yihiin iyagana waa diideen xaaslahood inay qoraan laakiin ilmihii inuu dhalay uu diin islaam ku qabo waa og yihiin khalaas taasaa muhiim taasaa shariicada islaamka ay qabtaa marka wax xaaraan igaga muuqata meesha aywa sheekh salaam alaykum barakallahu fiik dhinaca kale السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ waxaan ku weydiinay su'aal baan ku weydiinay. تفضل أختي. waxaan rabay gabadheedu waxay jirtaa 13 waa gartay caadadii baa ku dhacday marka dugsigii markaan tagay dhacday ka shaqaynaysaa dugsigii ma tagay ilaa haddana kitaabka qabanaynin marka sheekhdii macallinkina wuxuu leeyahay wax xeer ii yaala dugsigayga ii yaala inuu kitaabka la qabto نعم هذه قبل حشوت أي تاي قبل تاي حشوت كهلا برز كده ما هاس جورك هلا قديو ما جورك معلك وما إيمان كر دكسي بتكتة مركا دكسي جينا شيخ مركا ودينين وحلو ما الشيء يدي وحو يري أنا حيرك دكسي إياه لا وين قاعد صاحبه ولا تكدك القرآن كي مركا لما ذيك مركا ودينين وحيدا كتاب لو مدوا هذه تاي مسألة قبل حيل قبطة كتابك قابن كرتا هذه تاي ما قابن كرتو لكن حيلها جرى كتاب تفسيرها قادته كتابية تفسير كأف صومالي إنجليز كقرآن كاس قرآن كانوا كهيليسا كاس ويسن ومبهن ولا قادن كلا كتب الإنجليز أو تفسير كقادته وحم طلبت كل شيء كتاب كان كبر ليس موجود كل مسوقات جالين ما هكذا يا ريت معايا الكتاب كما قابن كرتا جوات دحيته هاي نعم marka kitaab tafsiir marka xeerka ii yaalo buu yiri marka telefoon dadka waxay culimada ka dhigeysan kartaa oo ka dhigan kartaa daatadin waxay tilmaadeen kolkor ka dhiganaynin ani waa ilmo moogto way xishoonayaan igu tiroon ka baqayaa moogta
ها ما يها waxay ka baqaysaa maalinkaas in la dadka la garto iyadoo guwaanta wadata la arko saasay ay diidan tahay waa gartay wax xishoodkana lagu kaalmeeyo gabdhaha xishoodka الحياء من الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام أن قبر يرنا ويتهاي وأن لو توبر حشوتك ونكسن مركا كتاب كتفسير كلو قادم معلنك سي آير لو شيء أنت سوا كوقان عيا إلتها إن شاء الله إن شاء الله تعالى جزاك الله خير مان طلبا ما طلبا كودين كرا هاي أضام ويسيسنا أيه أدي أضل لقيك عميل متن ويسيستي أي نافقات ما دام دي بوصل بلا بس مس أنت كلاسي وضيسة أصوب بالله بيسا إن شاء الله جزاك الله خير مان نعك الهلو هلو نعم الشيخ ما لهاد لكرا أساكو لهاد لاي waxaan ku weydiinaa laba arrimood waa gartay mid waa in yuulka arrimaha yuulka ay مثلا iskuulka waxay qabaan xafladooyin ay yuulka u dhigaan marka waxay sameeyaan geedkii ay sameeyaan oo ay dhahayaan ku soo wareegta ardayda dhan markaan ku wareegana dib ma naga soo gaarayo maalinkaas oo xafladaas laga reeb hadii geed lagu wareeganayo waa laga reebi karaa يعني دنبيا naga soo gaarayo ma wanaagsan maxay ilmaha yar waa lagu tababarayo waxaas in laga xafladooda laga qayb galo gaalada ma banaano oo xaflada diiniga ka hadlaya taasina waa qaadaysa waana ku wareeganaysa ku diiniga laga ilaaliyo ilmaha inta laga ilaali karo wixii lagu qasbo awoodina ahna waa gaar laakiin inta ilaali kartaan ilaali insha Allah okay waxa soo arinta labaadna waxa waaye wiil oo isqabno oo yani oo salaada duka markasto aan dhahayo asagana oo dhahay waa dukana asagana ma dukanayo arintaas hasalsanina arintaas hasalsan waalidka gaarsi tolkaas kugu yimaado arin weyn ka dhiga arinta markii islaanta la guursado qaraabada loo waca Soomaa ninka markuu salaada ka tago qaraabada la waco arinta ugu weyn muhiimka oo maynka ah oo qofka muslimka ah oo lagu ilaalinayo maxay yeelay arinta salaada laga diidana marka salaada hadda horta gaarsi qaraabada adiga arinta qaraabada dhan ina u sheego waa maanta waxa leedahay dagaal naga dhaxeeya ninka aan la soo dhax galo hala ogaado dagaalku muxuu yahay waa in arintaas la weyneeya dadkan salaada tukanaynin dibkeeda leedahay ilaahay na badbaado maxay guriga dhan halis ay caruurta dhan halis cadaabka ilaahay inuu ku soo dego marka yaa la saarsarin sida waxyaabaha kale ugu xanaaqdaan salaada hal ugu xanaaqo insha Allah وما سنتش جزاكم الله خير وقتي يا جبا ليهي عن موضوعنا مدمين او اسبوع كلا الى هدو نوسمه waxaan laan joognaa kaliya muaamalada gaalka muslimka ninka muslimka sidoo gaalka ula muaamilo tamoonaya aan ka hadlaynaa oo ahayd asal laba qodob aan sheegnay qodobka saddexaad ayaan ka hadlaynaa idan insha Allah asbuuc kale ilaahay doo noo sakhiro ilaahay naftan ugu gaarsiyo ilaahay waxaan ka barinay waxaan sheegnay hadii qaladihi nafteena sheedaanay ka ahaadeen hadaan saxna tawfiiqda ilaahay subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم كشخصية أو إسلام كدونيو